تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. maanta waxa weeye waxyaalaha markaa hadda soconaya ee waxa weeye markaa ku saabsan dadka markaa ururadu ay kala jiidanayaan oo hadallada markaa waxa weeye markaa khatarta la isdhaafsanayo waa wax markaa albaab colaadeed tumaya. albaab colaadeed waa wax tumaya, khatarna ay u tahay amniga iyo nabadgelyada inay wax yeesho ay khatar u tahay. hadallada noocaasana waa in aad iyo aad la isaga jiraa oo ruuxii markaa waxaa laga yaabaa kelmaduu yidhi inay fitno dhasho, dabeedna fitnadaa ka dhalatay dhiigga ku daatay iyo wax masaa'ibka ka dhalatay waxaa dhici karta markaa waxa weeye wax weyn inuu ka xambaarto. anugu gacanta waxba kuma dilin unaha odhan. qaar badan baa fitnada intay huriyaan haddana waxa weeye odhanaya anigu waxba ma dilin, yacni saa odhanay. ilaahayna wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima. yacnii ku kastoo dila qof muslima ah xaalu u badrheedhayo dila, ilaahay wuxuu ku abaal marinayaa oo ruuxa abaalkiisu yahay jahannama, xaaluu jahannamo ku waarayo. ilaahayna waa u cadhooday waana nacdalay, waxaana ruuxa u sugnaaday cadaab uu xanuujiya. 5 ciqaabood baa laysu raaciyey. marka waxa waye dadka muslimiintu inay fudaydsadaan ma aha. ruux kastaoo fitnada ka qayb qaatay nasiibkiisuu ku leeyahay. hurinta fitnada la hurinayo ha la yska jiro. dadka waxa weeye markaa fitnada hurinaya cidday doonaanba ha noqdaan ee aad iyo aad waa inay uga taxadiraan. hadallada markaa qalbiyada dadka wax isu gelinaya, nacaybka isu gelinaya, isku kicinaya, yacni waxa weeye qabyaaladii markaa soo noolaynaya, yacni cadaawaddii abuuraya, yacni markaa dagaaladii waayadii hore markaa waxa weeye yani xasuusinaya, oo waxa weeye ashyaada noocaas oo dhan waa in aad iyo aad la ysaga jiraa. aad iyo aad waa in la ysaga jiraa. waddanno badan oo markaa doorashooyin galay oo fitnooyin aan damini ka dhasheen waa jiraan. meesha jazaa'ir la yidhaahdo fitnadii weynaydee ka dhacday ee dadka aadka u badani ku dhinteen ee laga yaabo dadka ku dhintay inay 100 ku dhowaayeen waxay ka dhalatay doorasho dhacday. doorashooyinka in la barakeeyo ma aha, waa dariiq markaa gaalo laga soo qaato marka hore baatila weeye. shareecada wax ku bannaan ma aha, islaamna sidan wax uma dooran jirin. waxay muslimiini qabeen ma aha, waa wax gaalo laga soo waariday. shareecada wax ku bannaan ma aha, gaalaa laynooga keeno. muslimiintu dariiqyaday wax ku dooran jireen waa la yaqaanay, oo cidda markaa ummadda waxgaradka u ah ee ahlulxalli waalcaqdi la yidhaahdo ee ummadda waxna u xidha waxna u furta, hadday tahay odayaasha, hadday tahay culammada waxgaradka, kuwaasaa markaa iyagu gaar u bixi jiray. kuwaasaa markaa soo saari jiray ruuxa mas-uul noqonaya. dadka yaga u indha ah, dadka wax magaratada ah in la kiciyo oo yaga la abaabulo, yacni waxa weeye dariiqa noocaasi dariiq markaa sharciya ma aha, dariiq jiray ma aha, dariiq bannaan ma aha. waa fitno weeye, shar baanu xambaarsanyay. gaalaana laga keenay. waa tashabuh bilkufaar, gaaladii oo la shabahayo. ummadda in kooxa loo qaybiyo oo la yidhaahdo yacni xisbiye ayaa loo qaybinayaa ummadda. intaas oo xisbiye oo tartamaya ayaa loo qaybinayaa, oo dabeedna mid waliba markaysagaa qolada kale xumaanteeda sheegayo, mid walibana ka kale xumaantiisa sheegayo, si uu dadka u kala jiito. sumcadda kadib adigu soo jiido, anaa sidan iyo sidaa, anaa jac iyo mac wax ka dhigaya, kan kale waxba ma aha, yacni ba iyo ta'toonna ma aha, sidan buu yahay, kan buu yahay, keer buu yahay. yacni waxa weeye run iyo been la taxayo oo waxaa la akhrinayo, ummaddii colaad la ysu gelinayo, la ysku dirayo. yacni waxa weeye tan noocaasi waa dariiq markaa xun weeye, waa farriq tasud. yacni gaalada ayaa waxaa la yaqaanay inay isticmaalaan ummadda qaybqaybi, aad markaa maamushide oo madax u noqotide. dadka qaar waxay yidhahdaan dariiqa farriq tasud ah waxaa la yimi ingiriis. saxse maaha, waa qalad. farriq tasud waa dariiqii fircawn. ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu taa'ifa. fircawn baa muxuu sameeyey? dee inuu ummaddii qaybqaybiyey oo qolo xukunka haysata iyo qolo waxa weeye u dullaysta ka dhigay, oo uu yidhaahdo waa laga tiro badan yahay. yada markaa dhexdooda colaad la ysu geliyo oo iyaga la ysku jeediyo. tan noocaasi markaa shareecada meel kagama taal. qaybqaybinta ummadda la qaybqaybinayana mid bannaan ma aha.
ilaahay wuxuuna amray ummaddu inay isku mid noqoto wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xadhigga ilaahay xaalaa dhan tihiin oo mujtabiciin tihiin oo kulansan tihiin walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha tafaraaruqina ururada la samaynaya waxay tahay iyo xisbiyada iyo guruubadu yacni tafaruqi weeye tafaruqaasina mid markaa mashruuco bannaan ma aha siyaasadda markaa tafaruq in lagu sameeyaan bannaanayn oo guruubo ummadda loogu qaybiyo la yska hor jeedinaayo oo iyaga la ysku dirayo in markaa ururo diiniya loo qaybiyaan bannaanayn oo waxa weeye ummaddii lagu kala qaybinayo midnaba ma bannaana laa bismi ddiin walaa bismi dunya midnaba in lagu qaybqaybiyo saa la sameeyaa ma bannaana marka dambe sida wax loo dooranayo ee dadku ay samaynayaan oo ku saabsan markaa dadku dhammaantood waa siman yihiin gaal iyo muslimba waxaa la eegayaa un muwaatin ma tahay oo ruux watani ah oo muwaatin oo dhalasho haysta ma tahay mise ma tihid diintaa doontaba hayso ama gaal murtada ahaw ama muslim ahaw ama waxa weeye faasiq ahaw ama cadli ahaw ama mid wanaagsan ahaw ama mid xun ahaw mid lab ahaw mid dhadig ahaw mid yar ahaw mid weyn ahaw mid markaa caqlile ahaw mid safiiho wax magarada ahaw isku wada mid baa tihiin codkana waa siman tihiin mid waliba hal cod buu leeyihi muslimiintu waxay yaqaaneen maaha shareecadana meel kagama taal afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun dhammaan waa siman yihin bay ku leeyihin yacni muslimkii iyo mujrimkii waa siman yihiin muuminkii iyo faasiqi waa siman yihiin ilaahayna ma simin afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun waxay leeyihiin maya waa siman yihiinoo mid walba hal cod buu leeyihi ilaahayna wuxuu ihi ma sinna labkiiyo dhadigii waxay leeyihin waa siman yihiin ilaahayna wuxuu uhi walaysa dakaru kalunhaa iyagu waxay leeyihin may waa isku mid gabadhuna hal cod bay leedahay ninkuna hal cod buu leeyihi caalimkii iyo jaahilkii waa siman yihin bay leeyihiin ilaahayna wuxuu uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma sinna kuwa cilmiga le iyo kuwaan cilmiga lahayne jahaalada ahi iyagu waxay leeyihin waa siman yihin mid walba hal cod buu leeyahy dumarkii waxaa la leeyahay soo baxoo guryaha ka soo baxa ilaahayna wuxuu leeyahy guryaha ku sugnaada waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa markaasaa leeyahay dumarka soo baxa ya ilaahay guryaha ku sugnaaduu leeyahay dumarka yana waxay leeyihiin soo baxa doorashada ku rida maya issharraxoo markaa waxaabaad noqotaa yacni maamullada ka qayb qado tartan xubin barlamaan noqo madaxweynaha wax ka soo saar hadhowna wasiirnimo doono ma gurigaad fadhiyaysaa ka soo baxa guriga ninkaad la mid tahay maxaa lagu haystay haddaa siyaad barre haddii ninkiiyo gabadhu siman yihiin maxaa lagu haystay ila isba wuxuu uhi ninkiiyo gabadhu waa siman yihiine ninkiiyo gabadhu ma sinna dumarka in loo taliyo la maamulaa shareecadu amartay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu mas-uuliyadda inay leeyihiin baa allah sheega yagaa mas-uuliyadda le wax maamulaya yaga ayaa mas-uuliyadda raggu leh walilrijaali calayhinna daraja raggu marka waxay darajay ka leeyihiin dumarka maya waa simayano mid walba hal cod buu leeyahay baa layna baraya waxaasi waa baatil shareecada meel kagama taha dimuqraadiya in la koolkooliyo ma aha ruuxaad kaba ka tolanayso waxaa la kabihiisaa la eegaa dimuqraadiya hadday wanaag leedahay may gaala khayr ku gaadho waa kuwa markaa ay ku bannaysteen markaa raggu inay isguursadaan dumarkuna gaar isu guursadaan oo waddannada markaa waaweyne hadda markaa waxa weeye yurub qaarkood markaa waxaa la asixiyey oo la leeyahay legal weeye oo waa nidaam markaa waxa weeye furan sida markaa ninkiiyo gabadhu isu guursan karaan baa labada nin isu guursan karaa labada dumarina isu guursan karaan markaasaa liwaadkii iyo xumaanihii ku bateen ilaa ay gaadhaan markaa inay dadka isa soo sharaxaya inay la gorgortamaan oo ay yidhaahdaan xuquuqdayada halkaad marinaysaa codkaanu ku dooranee dad badan baanu nahay in raggu isguursado ma noo fasaxaysa mise nooma fasaxaysa ee xuquuqdiinna waan ilaalinaya waa indaafacaya waa ilaalinaya markaasaa la odhanayaa loogu rido dimuqraadiya waa maxay xukunka shacab baa iskale weeyi isagaa wax xalaalaynaya isagaa wax xaaraantinimaynaya wuxuu shacabku xalaaleeyaa waa xalaal wuxuu xaaraantinimeeyaa waa xaaraan waa xukmu shacbi bishacbi ilaahayna wuxu uhi in ilxukmu ila lilah xukunka ilaahay oo keliya iska leh almuxallil waalmuxarim waa allah shacabkii waxay yidhaahdeen waxaa ka naa'iba barlamaan shacabku ha soo doorto barlamaanka xubnaha barlamaan markay soo doortaan iraadadii shacabka waxaa laga garanayaa barlamaanku wuxuu doorto ra'yiga barlamaanku wuxuu matelayaa uu markaa soo saaraa ee bilaglabiya ku soo saaraa majority shacabku matelaya hadduu yidhaahdo khamrigu waa xalaal oo sidaa loo bato waxaa la odhanayaa waa xalaal
wallahu almustacaan. marka waxa weeye weliba waxa dheeraada fitanka jira ayaa dheeraada. dad fara badani waa laga yaabaa inay garanayaan dimuqraadiya waxay tahay ay maqleen oo aynay ogayn dimuqraadiyadu inay ka hor imanayso shareecada islaamka. laakiin waa in la ogaadaa oo horta la bartaa in shareecada islaamka iyo dimuqraadiyadu ayna iswaafaqayn, iskana hor imanayaan. mas-uuliyiintuna inay tidhaahdo dadnu dimuqraadiyaynu nahay waa arrin khalad ah, waana arrin markaa waxa weeye shareecadii ka hor imanay. ruux waliba wuxuu doonaha iska sameeyo. kii qur'aan daaranayaana qur'aanka ha daarto, kii markaa hees iyo yacni qurun daaranayaana ha daarto. waa arrin markaa baatil wey. waxaa layna amray xumaanta inaynu reebno. man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan. nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo arka shay munkara gacanta ha ku bedelo. hadduu ku bedeli kari waayo afka ha ka dooriyo ha ku bedelo. hadduu ku bedeli kari waayo qalbiga ha ka naco. dimuqraadiyaduna waxay leedahay may adigu soo saa ma qabtid, sidaada markaa waxa weeyaan adigu u wado, masjidka iska gal, iska cibaadayso. kii kiniisadda doonayaana kiniisadda ha galo. labadii doona inay wada tuntaan ha wada tuntaan. xorriyad bay dadku leeyihin, xorriyatulictiqaad. diintuu doonuu qofku qaadan karaa. marka dimuqraadiye iyo diinta islaamka waa iska hor imanayaan. qofkii muslimkaa inuu gaaloobo looma ogola. man baddala diinahu faqtuluuhu baa nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam. diinta yaan been laga sheegin. diintu ma qabto dadku markaa xorriyad ictiqaad inay leeyihiin oo wax alla wuxuu doono inuu ictiqaadiyaa u bannaan tahay. hadduu doono kufri ictiqaadinayo ou caqiidaynayo, hadduu doonana islaamnimo caqiidaynayo. waxay diinta islaamku qabta ma aha. markaa dimuqraadiye khayr kuma jiro. intikhaabaadka iyo doorashadaasina waa fitna iyo baadi, shar baynay xambaarsan tahay. dad fara badani waxa weeye dhibaatooyin bay u sababtay oo gaaladu waxay doonayaan inay geliyaan beledo badan oo beledada islaamka ka mida waxooda inay geliyaan bay doonayaan. markaasay odhanayaan intay u qurxiyaan tan qaata, nidaamkan qaato, sidan yeela. waxay muslimiin yaqaaneen ma aha. dariiqyadii muslimiintu yaqaaneen ay wax ku dooran jireen baa khayrku ku jiraa. wax khayri kuma jiro dimuqraadiyadda kuma jiro. fitan iyo shar badanna waa xambaarsantay. waxa dheeraad ah dimuqraadiyad iyo qabyaalad baa isguursaday. maxaad u malaynaysaa inay iska dhalayaan? markii hore waa dimuqraadiya, markii dambena waa qabyaalad. labadii markay isguursadaan maxaad u filaysaa inay iska dhalayaan? ma u malaynaysaa khayr inuu ka dhalanayo? shar baa ka dhalanaya. durbaan colaadeed baa la tumayaa. ilaahay ha laga boqo. durbaanka colaadee la tumaya ha la yska daayo. khayr laga dheefayaa ma jiro. ku cibro qaata beledada hareeraheenna ololaya. maxaa hadda ka jira waxa weeye markaa muqdisho maxaa ka jira? dadkii cabsi ku nool yihiin. maxaa ka jira markaa ciraaq? maxaa ka jira? maxaa ka jira suuriya? maxaa ka jira? maxaa ka jira beledo badan? maxaa ka jira? ha lagu cibro qaato. alcaaqilu man itacada bigayrih waalaxmaqu man itacada binafsih. waxaa la yidhaahdaa caqli waxa leh ka kayrkii ku cibro qaata oo ku waantooba. waalaxmaqu man itacada binafsih. nacasna waxaa ka naftiisa ku cibro qaata oo waxaasi ay ka mallafan yihiin ilaa ay ku dhacaan. markay ku dhacaan ayuu garwaaqsadaa. qisooyin xikmo ah maxaa la soo naqliyaa? soomaalida qaarkood waxay soo naqliyaan dadka qaarkood oo markaa waxyaalaha fitanka a galay iyo qabyaaladaha iyo dagaalladka lagu dagaalamayo iyo kibirkaas inay markii dambe isciilkaambiyeen. waatay dadku ku mahmahaan. aadan galaydh wuxuu yidhi adduun ikhatal. inankiisibaa inan dilay. inankii markuu dilay ayaa laga kari waayey. bal magtii adigu markaa hal bixi, qaalin ku soo dar, inta kale annaga ururinayne. ciddii kalena waxaabay raalli ku noqotay inay magta qaadato. markaasuu maanaa qaalin lay weydiinaya. ha la yaabe, kibirkaa iska leh. inankii baa yidhi aabba qaalinta iga bixi. markaasuu ifka laguma ciiline ma uurkii hooyadii baa lagu dili jiray. dadkii kalena waxa weeye dee way kala kaxaysteen geeloodii. haddii ninkii dhalayba bixin waayey, marka maxaanu annagu haddaa u bixinayna? isagii baa laga bilaabay. inankiiyo waa la dilay. waa la isku baaba'ay. berigii dambea la yidhi warran hadda aadanow. wuxuu yidhi adduun ikhatal. shalayoo aan tamar hayayna tala ma hayn, maantaan markaa tala hayana tamar ma hayo. war mar dambaa la garan doonaa. war hooy belaayo hor la qabtay leedahe daba la qabta ma leh. war durbaan colaadeed yaa la tumi. war amnigiiyo nabadgelyadaa lagu joogaa. yadaa wax lagu baranayaa. yadaa lagu baayaca mushtaraynayaa. yadaa lagu tarmayaa. war haddii layscuno oo laysqasho, tarantii meeday, adduunyadii meeday, waxbarashadii meeday, nabadgelyadii lagu wada joogay meeday, mabedderro camiraanayaa jira. war umuuraha ha la xakameeyo, ha la qabto. hadal fitno sababaya yaan la odhan.
dadka markaa waxa weeye dadka mas-uuliyiinta u ah ama ururo markaa ha ahaadaan guddoomiyeyaashood ama ha ahaadaan madax dhaqameedyo ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha noqdaan noocay doonaanba ha noqdaane hadallada turxaanta lehee wax isku diraya aad iyo aad ha ysaga jiraan qad haya'uuka liamri low fatinta lahu dadkii waxay kuu diyaariyeen arrin haddaad u fiirsan lahayd yacni waxa weeye weyn bay kuu diyaariyeen farba' binafsika an tarca maca alhamali war naftaada kala yaqyaqsoo dadka liita inaad markaa waxay la daaqdo war wax kastoo lagu hadloo dadka qaar ku hadlaanba ha ku hadlin war ruuxa mas-uulka ahi ruuxa markaa ciyaalo suuqi siduu u hadlayaan u hadlin war belayaan la fadhin belayaan la fadhin waxba laga dheefi maayo dhib waxaan ahayn laga dheefi maayo aad iyo aad arrinkaa laysaga jiro hadalka aynu sheegnay ee ku saabsan doorashadani inaynay ahayn shay shareecada waafaqsan waxaynu leenahay mukhaalif lishariica haba noqotee hadday dhacdo inay cidi ku soo baxdo oo xukunka iyo talada ay qabato awooddiina gacanta u gasho dadkii racyad ka dhigto amniga sugto iyo nabadgeliyada qabashadaa talada ay qabatay ee dadkii sidaa ku aqbaleen ee racyad ugu noqdeen ee amniga ku sugtay bay ku noqonaysaa yacni xaakim ku noqonaya ama madax ay ku noqonaysa oo madaxnimadu ku sugnaanaysaa oo xaakim sharciya uu ku noqonaya waayo saynu horeba u soo sheegnay wakhtiyo hore yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa shaygu inuu sii jiro waxaa lagu dhaafaa lagu cafiyaa ama lagu saamaxaa in shayga la bilaabo waxaan lagu saamaxin iyadoo taladii awooddii gacanta uu ku hayo ruuxu haddii la yidhaahdo xaakim ma aha dee fitan kalea ka dhalanaya oo xaakim ha la raadiyo ha la doono kane xaakim maahe ama madax maaha baa ka imanaysa taasina waxa weeye fitan iyo iraaqatu dimaa iyo dhiigaggu inay daataan iyo amnigu inuu khalkhalo iyo dhibaatooyin inay yimaadaan bay sababaysaa shareecaduna masaalixday sugtaa badisaana mafaasiddana waa daafacdaa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix xaalad ka daran baabay culammadu sheegeen oo ku saabsan xaalatu listiilaa wataqallud cid awooddii maroorsi iyo xoog ku qabatay oo awooddii sidaa gacanta ugu gashay wakhtigii saxaabaday dhacday iyadoo saxaabadii nebiguba sala allahu alayh wasalam in badan isii nooshahay cabdulmalik ibnu marwaan siduu xukunka ku qabtay dee awood buu isticmaalay dadka xataa doorta ma odhan inuu awood dadka lagu khasbo oo lagu dirqiyo oo lehe wixii ka hor yimaadana waa la dagaalamaya dadkana saasaa racyad kaga dhigaya dee waxaan bannaanaynu xaaraana haddana markii ay dhacday oo awooddii sidaa gacanta ugu gashay xataa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam bay cadaysiiyeen xadiiska saxiixulbukhaari ku sugani waxa uu sheegayaa in alla intii dagaalka iyo iska hor imaatinka iyo dagaalanku uu jiray cabdullaahi ibnu cumar qolana markaa ma ateecin qolana bayco ma siinin wuxuu arkayay fitna inay tahay maalintii ibnu zubayr laga takhallusay oo taladii gacanta u wada gashay cabdulmalik ibnu marwaan dadkii kale racyad ay noqdeen maalintaasuu baycada dhiibay cabdullaahi ibnu cumar oo culammadii saxaabada ka mid ah saxiixulbukhaari bayna ku sugan tahay isagoo leh inii uqiru biاsamci waاطaaca liamiiri اlmu'miniin cabdilmalik ibni marwaan samci iyo taaca ayaan u qirayaa cabdulmalik ibnu marwaan oo amiiru lmu'miniin ah wa ina baniya aqaruu mila dalik ubadkayguna saasoo kalay qireen ruux kastoo sidaa khilaafo ubadkayga ka midana ilaa kaanat ilfaysala baynii wa baynahu isma sheeganno cid ubadkayga ka mida hadday saa khilaafto waa fii saxiix albukhaari marka waxa weeye calaa kulli xaal marka la leeyahay dariiqani sharci ma aha looma jeedo haddii cidi ay soo baxdo oo talada iyo awooddu gacanta u gasho oo dadkii raciyad u noqdaan isagiina amniga sugo inaanu xaakim sharciya noqonaynin looma jeedo waxaa laga hadlayaa sida khayrku ku jira inay tahay siday muslimiintu wax u dooran jireen oo ummadda ahlulxalli waalcaqdi inay wax u doortaan oo u soo saaraan markay abubakrin sidiiq saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay la baayactamayeen oo dooranayeen meesha lagu dooranayey gabadh quri ma joogin hal gabadh ma iman lama odhan zawjaadkii nabiga sala allahu alayh wasalam dumarka kale kuma jiraan lastunna ka axadin min annisaa'i in ittaqaytun yaga ha loo yeedho ra'yigooda ha la weydiiyo yaad taageeraysaan ha la yidhaahdo yaad ku talinaysaan ha la yidhaahdo marwooyinkii nebiga sala allahu alayh wasalam marwooyinkii nebiga iyo ummahaatu lmu'miniin yagu xurmo gaaray leeyihiina u yeedha arrinkan ha ka qayb qaataan oo tale ha ka dhiibtaan ra'yigooda ha la qadariyo oo marka ha la eego lama odhan waxay ku camalfalayeen in dumarku gurigooda inay joogaan ciddii soo baxdaana markaa u ah xaakim
inantii nabigu u dhalay sala allahu alayh wasalam faatima binti rasuul cidi uma yeedhin hadda waa ina rasuul sala allahu alayh wasalam xaraf lama su'aalin arrinkan dumar shaqo kuma leh cinda alislaam oo gabadhi madaxna ma noqoto madaxna ma soo saarto lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a marka khayrku wuxuu ku jiraa sidii muslimiintu wax u dooran jireen laakiin looma jeedo haddii cid marka ay soo baxdo oo amnigii ay sugto dadku racyad u noqdaan xaakim sharciya noqon maayo loogama jeedee ciddii amniga sugtaa oo nabadgelyada markaa sugtaa oo dadku racyad u noqdaan wuxuu noqonayaa xaakim sharciya sidaas yadaa weeye laakiin khayr inaguma jiro tane sida khayrku inoogu jiro inaynu u noqonnaa inoo eg gaalo inaynu raacno ku dayanno wax khayra inoogu jira ma jiro man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa digis laynooga digaayo tashabbuha gaalada la shabahayo laysu ekaysiinayo aayaddan lafteedana waa laga qaadanaya tashabbuha gaalada in la diidayo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum albayinaat ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed